Soomaaliya standard form markaa kasoo baxday hadday gabar kaa weynta naxdin iyo cabsi cashuub rajaalaa noqonaysaa waxaa lagu leeyahay artiste plastico surwaalka walaashaa ku bilaabaysaa hell no waryaa intii surwaal extra laga helayo oo kaaki ah surwaalka walaashaa ku bilaabaysaa surwaalka gabdheed waaye waryaa intii surwaal kaaki oo extra laga helayo surwaalka walaashaa ku bilaabaysaa surwaalka uu tubo waay jeebkiisa sakiin waay bistolooyin uu leeyahay قشتي ما حيلك حبت كل يوم مثلا artiste plastico do pistol hell no man I hate this family إلى شيء كذي كم صار the worst part منطقة سؤالك جيبك وكدلع كبار صار كم كل حديث عقار على I don't know وبح النوع أنا سومالي مكبح إندونيسي مكبح حديث عقار كه welcome Somali Entertainment Award 2018 وحيلا دادين دونتو وريه رقعداء Golden Voice كوثر محمد KLY ولا بدل مقالة آد لوجه جعليه وريه رقعداء أنا كان هوستي كا إيضا MCA كتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نسيت واتسلمتي قبلياشة البرنامج كان محضر بالمحاضرة اليوم ويجي قبل مشغول صار يسكت بركيزة أنا أو يسوع هكذا ما رش يسكت ما درنا سوى أفشانه أنا أركتها بروحي واختيار الرقعتي وقلت كذا عاوي بدوينا شرط لنا راسه قبل البرنامج أيضا هكذا نقول الله. Kusoo dhawaada Somali Entertainment Award. Somali Entertainment Award wuxuu ka kooban yahay sporting entertainment Soomaaliya. Ujeedkeedu waxa uu yahay inaan wax qabsano. Waxaana la aasaasay 2008. Adaha qoorta Cabdulqaadir Maxamed Mursal Caawo waxaan saaraynaa magaciisa Allah ka shugo. Wuxuu asaga saddex barbaar noo noqday inuu dowladda la hadlo intaasaan soo jiidaynay waa ku rafaadnay Cabdulqaadir Sheekh joogo albadaya magacada oo la sheegi doona أقول معهم صنعاء وأنا أتاك شارعيا وصاروا عروض بداوين ولي بحثي هذه إلى ستوص دولة كل هذا الشيء وغيره وريته وروكنا كان رواتنا. عبد الحكيم هذا الكيس أعتقد الصراحة عبد الغني محمد مصطفى والد هو مركب هذا الصحافة الرقمية ومعلم كيدي ومعلم كيدي ضدنا بضرب القفرية هذه حسوسية عبد الله شرف كاملة ضدنا أسئلة وحسوسة. مرة بإلى الدوام تعرف مرة إلى الدوام وحكروا يقولون البرياش عاود كان اليوم أنا عدنا ومشى مقالوا يكون تناعة من السودان مسكين والسيوط. هذا سؤال من جالبية كويسة وأوصل محمد جبران Golden Voice. واحد الصحافة بينوني بسيبوني شباب وحكروا مرة يقولون ديالنا الله تيفي قرنك. ما شاء الله تيفي قرنك. waxaa kaloo nala joogo Dave waa sound engineer waa rapper weyn waa Maraykan asaga Dave the building waxaa kaloo aan iyagu meesha ka maqnayn Tusmo Times Abdurrahman si family uu ka tirsan yahay habeen sagaal saacada waa wacaya marka ingiriiska waxaa ka cabsoonaa oo qadaran oo waa loo diray script asoo Soomaali ingiriis oo soo gaabo soo celina Abdurrahman Mukhtar thank you waa director Somali Youth library uu la shaqeeyay waa qoraa waa CEO ee Tusmo Times Abdurrahman Mukhtar is the building waa tahay mar loo ilaa iyaguna qaar kale oo iyaguna aad waaweyn oo halkan nala jooga STM ayaa ka mid STM thank you STM the building waxaa joogo walaalkay Sidisha Australia baby is in the building one of the best promoter one of the best DJ alaabtaas kan group waxaan uga gelaynaa markuu meesha fuulo waa taqaanaa kan group wax kala maqaanaa ay kan group wax kala maqaanaa Sidisha in the building su'aal waa dhabayna weydiiyo maanta ninka Cabdi Xakiim horta isla jabaleed laba bilood ku fulan labo weliba awowga ay furay awowga isla jabaleed isticmaala awowga weyn waa ninka oo dhalinyara marka haweenka ugu furay wuxuu yiri waa Xakiim oo isdhowa waxyaabo badan Facebook waxaa noqday aniga dhowr number 10 aniga ma weli yaqaano laakiin wuxuu Snapchat ka soo dhisaa wallahi aniga sabab ah dawo sige adoo dadka dawo habeenku ii sameeyay oo uu yiri dad badan ku dardaray abaarka baa uu yiri laba fulo office maxay
labadaas qofood u fiirsatay aan rabaa inaan arko base waa faarax suuloona inda kuu soo marsaday jacayl faqiirgalama iyo xaliimad kalonisanayso oo daba joogto xaasidnima girta kaa kulamaysa عارف عن الله كان ويانا نجلس كلا كنت كاو كارلوس كوبيتر كارلوس كوبيتر يو دينارو دينارو هويا 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 الله هويا هويا غرني مدوا شبرون قيمكاني قبله ترى كمر صدق كسومالي يقي قباه بيور كنور شيء قدر جميع شذاقات الجيكولا قادر الله يوبكي ويقب جميع وفيتو كنور يهي نشر النقاب وبعليه قبري يجبو حاضركي علمي قراري قوم بي صومالي ومسقاتي ويا دورا مقرق عليا جيكي ربولا يعني بريقاتك الوقودا للقودا قفل القريدا لو صدرقين الوحيرين قوم ما يصومالي وإسقاتين مشاحنو جبتيغا عن مرة سمر مشاي عن مشاحنو مولانا عن سمر مشاي عن مشاحنو مالك تبني سمر مشاي عن مشاحنو جبتيغا عن مرة سمر مشاي عن مشاحنو مولانا عن سمر مشاي
عشقون من كولا دقين إلى مشرق صعبك وليو أرسي ملكي تناب قبر بايا معاني مالما إلى تاقي وليو أرسي ملكي تناب قبر بايا معاني مالما إلى تاقي مشاحنو نماي كدقني سمر مشاي أنا مشاحنو جبتيغا أنا مرة سمر مشاي مشاحنو مولانا أنتقني سمر مشاي أنا مشاحنو نماي كدقني سمر مشاي أنا مشاحنو مولانا أنتقني سمر مشاي أنا مشاحنو جبتيغا أقوام حجوة أو أدوية طبيعية كعي ويا كعي أو كعي كم جيل أو كعي لو كبر كعي ما هو شيء لسه دوي كعي أنت وصلت على كتب سينا قوي أو حنتي أو جعفر قال يو حيالو قديو ولا الكيديو قولت ورسالة geedaha hagaanku kala bidigo kuwa ku ganacsaday geedhidii booqooqatay sanadayda abdaasitiir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أتصل سنتي بعد ومية نسابية وحنا كارون دانتين نقول الضوء مكان يا باشا دانتين اللي قالوا عنكم بلا أفريتو يجيب وحنا كذا هاي أفريتو مكان وحنا هاي نيجي قدوم بنتو كلمة ماشي اللي قبل تعرف واللي يردان تعال قبل هو هذا بعد أنت مو بعنا قاعدين نقول أرتبالي إنت قبل ما بتجيب بعض ما هي وين وعسوقان تلي هذا واحدي هذا كنا سوماليا قفكستا أو سوقان تكريا أما هكبيو أما هيسو أما دانتا هلا تريو أما بدور هلا تريو ولسقا هلا تريو شاندر هلا تريو كبير وأو سوقان تفوح الصومالي كويسة مركين عندي سوبرنا حق وعند وعن حتى عن متقانا هذا بقالنا وذي إسبان أو مركز سوا حفظ عندي كانوا طليرادي قبله يويرشي أو هدية لك كي وتا توري كي وتا كي شد وحرتاي ورن كي وتا قبله أي طبعا عليه وحرتي هاي مرضي ستعقيد هذا حرتاي يويرشي كل حطوة حرتاي وكوي حتى كنت مرور مرة كنا أدي أدرككم هذا عليه لا تمايا مدبايا مدام تلا تمايا لا تمايا مدبايا مدام تلا تمايا in the way that the mansio the work the Danto is Kadafayo. Our one day say the Kafari, Yapi, and they Van Gwen, Manaba, Latomaya, Mardabaya, Mardam, Talatomaya, Latomaya, Mardabaya, Mardam, Talatomaya. Ita, what Antala. حسدي وياي إن وين بسويا ميكابي سالين المي إن وين
suuganta waxaa lagu dhigaa sarogsoonaayi soomaalinima weeyo sida seexaayi sahal hawga qaadana waxay nagu siibeyeen sawirada tanmuudiyo waxaan loola goosaysaabay soomaalinimadii horey ugu siixeene su'aal malahan maansada haddaan saxay ayaan taane suxufiyiintiinoo dhammaan wasanaan wacani soomaaliyo idinla weysa cabtuumayani soo dhowaada sawir lama heleen haddiina suxufiyu joogeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولا شيء وحنا نسول ويساق قفقات في مقبضة وهذا ما ليش السيفا بالكترسة سي يو تسمى تايم عبد الرحمن مختار. أنا واحد كان آخر كان ينقل السبل سنة إلهام عمر. إلهام. الولاد يسوي ما شاء الله. جالين وما سنتهاي السلام عليكم مركل يلوس عبتما بيجي جيلاني انت عالم بلابن تاريخ القوة عبد القادر مرسل وحارب هنا هم هالعليو عبد الحكيم يدمان دكي برنامج كان كلاسو قرقاتي اما قرب استاغي يدمان بعض السي فاميلي وحارب هنا السي كلي لالو وص عبتما تفضل aniga waa la iga mudnaa maanta waxaan leedahay cabdiqaadir mursal in aan maaragtay abaalmarinta la siinayo dad waaweyn ama bahda warbaahinta kusoo jiray ama soomaalida sida dhabta u yaqaanay taariikhdiisa ayaa iga habboonaa laakiin maadaama uu macalinkayga yahay أنا كم ده هاي بعد في family وحيابها اللي يقولوا فينا المالتا لما بفوقاني أصول ويو تعرف لو نكشف كيو وأبغى نفس جيجا مارتي حقيقة مكان كهذا تاريخ حقيقة عينه كونسا مكوا حربا عبد القادر المرسل مركز تاريخ لسه أنا أخلنا يا ماني شيء وحلا سوقه بي أملا بوبسين معه صارت وقف مدة تاريخ لسه كاي عفرت الصرا ودرين كتر متقفة تاريخ عفرت السنة أنت لوسو قوي كرو وأنا الدلالة لكن حربا عبد القادر أبو جيدان وحاول وقتها المحل ده هي سعيد عبد الحكيم ديان مجي عيسى سبحانه وعبد القادر محمد مرسل وحاول وربعدا ورباهنتا كسو جرى مدة 4 سنة كله وحيابا عن سوكو ويحكمدا وحكسو شقيي غادي مدشو شقيي كلية معها وحكمدا مسؤوليتي برنامجين زيارة جري ولما وقتي واحد الغالية ما تشقينا وقتي كل بدل أي صامري dad waxaa jira markay barnaamijkan meel ka shaqeynayaan meeshii oo qalab yaallo wanaagsan wax dhiba lahayn isku nidaamsan yimaada laakiin waqtiyadii isaga uu joogay waqtiyo aad u dhib badan ayuu soo maray xitaa markuu ka shaqeynayay wuxuu ka soo shaqeeyey wargeyskii xidigta October dad badan waxaa jira aanan aqoonin dhalinyarada da'da yar laakiin wuxuu ahaa wargeys ama joornaal ka soo bixi jiray Muqdisho wuxuu ahaa qoraal qoraalnimada ka sokow wuxuu ahaa dadka ma oga waa qofka ugu horreeyay ee Soomaali ah ama suxufi ah ee kaartuunka maaragtay wax ku qora fikradda ku soo tabi dadka ma oga hadda waxaa la arkaa Amiin Caamir iyo Cabdigaar dad kale la arkaa laakiin waa qofka ugu horreeyay joornaalka xidigta October macallin ku soo qori jiray إلهي مقلاه ويدي وحن كعسين جري ناصر النويا وعن كل جري إلهي مقلاه وحن يجري هو يدو بقص بتيجي على ما صار جمعنا اللي بيسجل شكل أول ويدي إلهي مقلاه وحولها قفتي باللابي برنامجيدا روايadaha oo kale ama sheekooyinka in raadiyaha laga tabiyo dadku awal waxay u tiri jireen riwaayada inay
masrax kusoo daawadaan ama tiyaatarka laakiin wuxuu bilaabay in dadkii barnaamijyo sheekooyin ah riwaayado ah inuu qoro oo raadiyaha laga tagiyo dadka si ay u dhegaystaan marka barnaamijyadii isaga markaas uu soo jeedin jiray waxaa ka mid ah waxaa waaye olol iyo hooyadiis oo mar walba cabdixakiin aan ka maqlo waa sheekooyinka loo duubi jiray cabdixakiin waa olol iyo hooyadiis يوتيوب ما له يوتيوب أنجز أولو يهوديس قف يكان يكان ضد بحاول أوي CD كمان CD أولو يهوديس بتقارنه استاك أنا استاك تدوان أنا سوى بريكول المال لا صوب عيسى marka sheekooyinku qoray boqolaal sheeko ayay ka badan yihiin waxaana ka mid ah qaybihii dambe sheekooyin la dhihi jiray hamadhowr lama huraan jidka geerida dhoofkii maaragtay shaqle sheekooyinka caanka ah buugagtu qoray markii dagaalada dhaceen sheeko waxaa jirto aad dadka ay cajiib ahayd oo la dhaho mooryaankii genjar sheeko la dhaho aad cajiib taxane ahayd waxaa kaloo jirta maaragtay tuug tol leh waa dareemi kartaa tuug tol leh maaragtay xikmadda iyo waxay xambaarsan tahay xaqiiqdii marka aan ka hadlo waxaan ii sheegay 40 sano ma kusoo koobi karo taariikhda cabdiqaadir mursal soomaali ahaanna waxaa weeye inta badan annagu dadkeenna xumaanta geysta ama dadkeenna maaragtay waxyaabaha xun sameeya ayaa maaragtay inta badan aan buubuunina ama ka hadalno dadkeenna wanaagsan taariikhda leh taariikhda baalki dahabka ka soo galay gaar ahaan cabdiqaadir oo kale dadka taariikhda noocaas oo kale ah leh waxqabadka heerka noocaas oo kale dad badan soo saameeyay caawa waxay maaragtay farxad ii tahay in loo gartay caawa in abaalmarin la siiyo mar hore ayay ahayd in la siiyo marar badan ayay ahayd in la siiyo isagoo kale waa dadka adduunka taalooyinka loo dhiso waa dadka maxaa la dhahay jaamacadaha loogu magacaabo wey xaqiiqda magacaaga marka waxaa rabaa inaad la soo dhaweysaan cabdiqaadir صعب ينزل عبد القادر المسكين ومثل المشعرات مرة بينا هذا الليل وبدلنا نسيت هاتو waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysaba dhammaan dadkii ii gartay inay abaalgudkaas ama abaalmarintaasi ay siiyaan iyo xusuusta ay xusuusteen oo uga mahadcelinayaa weliba waan filaayo in dad kale oo badan oo iga sii badan ay halkan fadhiyaan amaba ay jiri karaan hase haatee aniga ayaa markan nasiibkaygu noqday in aan la igu sharfo oo aan haddii maaragtay haddii aan lagu leeyahay aan aniga aan noqday qofkii lagu sharfay ee lagu ixtiraamay anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah waxaan hambalyo iyo mahadnaqba u dirayaa madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garashada ay dowladdu garatay inay jiraan shakhsiyaad mudan in wax la guddoonsiiyo amaba la dacsiiyo laakiin maxaan uga dan leeyahay waxaad maqlayseen cabdixakiim biyaar inuu hadda lahaa ka mid ahaanshaha golahan iyo mas-uuliyaddiisa inuu ugu soo wareejiyo mas-uuliyadda golaha anigoo uga faa'iidaysanaya arrintan ayaa waxaan soo jeedinayaa oo u soo jeedinayaa xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Farmaajo in la dhiso guddi qaran guddigaas qaran oo qiimeeya oo soo baara ogaada dadka la doonayo in la guddoonsiiyo abaalmarin maxaa yeelay haddii ay abaalmarinadiina naga noqdaan nin jeclaysi amaba shakhsiyaad gaara qof walba inuu soo sharaxo
amaba uu soo gudbiyo in lagu abaalmariyo magaca qaranka ama magaca dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay wax saxa oo laga baaraandegay oo la turxaan bixiyey oo la ogaaday in ay taariikhdu u gasho qofkaas qof aanan mudnayn in la abaalmariyo amaba la xuso ama la xusuusto oo qof ama qolo ama qayb ay soo sharxday way adkaan doontaa dadkii dhabta ahaa ee runta ahaa ee wadaniinta ahaa in la ogaado way adkaan doontaa marka taasi waxaa looga fogaan karaa ama looga dheeraan karaa in xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynuhuba ay u saaraan guddi qaran oo iyagu ka soo baaraandega oo ayagu soo qiimeeya oo ayagu soo ogaada markhaatiyaalna u haya qofka lagu maamuusayo darajada sare ee uu leeyahay qaranka maxaa taasi tulamidana waxaa imaan doontaa dadka dhibaatooyinka geystay ee waddanka dhibaatada u geystay ee hantidiisii burburiyey ee dhibaatada kala gedisa waddanka gaarsiiyey in ayagoo sidaas si lamida mar ubay ahaan doontaa in la helo maxkamada la soo saaro oo iyaguna markaasi waxay muteysteen la mariyo marka tan waxaan kusoo gabagabeynaya oo markaan aan ku adkeynaya guddigaasi qaran oo la dhisi doono insha allahu tacaala oo aan rajeynayo in madaxweynaha iyo xukuumadduba ay arrintaasi aqbalaan in aan ku wareejin doono qaybtan waqooyiga America ee wax qiimeynta ah in ay markaasi noqoto wax qiimeyntu mid caam ah hadday noqoto mid adiga mid guud in dalka laga qiimeeyo hadday tahay mid gaar ah oo gobollada iyo dalalka aan joogno salkooda ay tahayna waxay la tahay markaasi inay noqon doonto mid gaar ah oo kooban marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa haddaad idinkuna saas aada waafaqdaan guddigaas qaran ee qiimeynta dadkii wax ku-oolka ahaa ee hore ee taariikhda Soomaaliya kuwii dhexe iyo kuwa maanta in guddigaasi qaran loo sameeyo oo wixii abaalmarin ah iyo wixii dalacsiin ah iyo wixii magac ku sheegid ah in guddigaasi uu wada aqbalo oo guddi sare ee qaranku leeyahay insha allahu tacaala ay noqoto sidaas mar kale ayaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiya xafladan qiimaha leh iyo dadkii nagu maamusay in aan abaalmarintan meesha caawa lagu guddoonsiiyo walow halkana ay fadhido insha allahu tacaala gabadh aad noogu magac weyn Faadumo Hiirid oo aad taqaanaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay macalinkeena weliba aniga gaar ahaan macalinkayga cabdiqaadir maxamed mursal waana soo dhaweyneynaa mar walba haatana waxaan u yeedhayaa cabdiraxmaan mukhtaar caawa waxaa nasiib u yeelanay Faadumo Hiirid waa la sheegay waa hooyadeed waxaa weeye waa haliyey taariikhda qaar badan ayaa laga tegey sidoo kale cabdiqaadir ayaan ku xijinay cabdiqaadir mursal oo xaggii bahda ah waxaa u malaysaa guud ahaan soomaalidii hore iyo wanaaggeeda marka laga hadlayo meel walba marka la tago saddex dhinac oo waxaa jira isku xiran xagga warbaahinta fanaaniinta iyo ciyaartooyda waxay ahaayeen dad aad maaragtay iskugu xiran dad aad loo qiimeeyo dad aad waddanka maaragtay wax badan u soo taray dadka caawa inta nala joogana saddex dhinacba ka socda waa saddex aad qiimo iyo sharaf u leh marka nasiib wanaag taariikh waxaa caawa waa habeen taariikhi ah sababtoo ah xaggii warbaahinta Faadumo Hiirid iyo cabdiqaadir ayaa jooga iyo dadkii ka dambeeyey ay tababareen hadda waxaa rabaa inaan u yeelo xaggii ciyaartooyda cabdiqaadir shiikh ah dhalinyarada da'da yar لاعب الموسيقى صح عبد الشافي صح صح لاعب الخرق كمان كمان استاجر والله استاجر وقيم الجردن كده وقتي عبد الشافي cabdiqaadir fahmi sheegay xaaji daahir oo loo yaqaano shiikha dhabaxaantii dadka kubadda kolayga dadweynihii Soomaaliya aad ku jecla kubaddaas ama daawan jiray ama nasiibka u yeeshay wuxuu ahaa qof aad ku jeclaayeen inay daawadaan waagaas isaga ah waxaan malaynayaa hadda caanaha fuduudka iyo cuntada waddanka lagu cuno
ayaa culays saaray laakiin qof aad u baryar ayuu ahaa baryaradiisa iyo xirfadiisa kubadda kolay soo ciyaar jiray isma lahayn iyo dadku iska celin jiray ma fahanteen marka sidii aan taariikhdii koobnayd ee aan uga hadlay cabdiqaadir mursal waxaa rabaa taariikh kooban oo shiikha inaan halkan ku sheego marka aan ka soo tago waxbarashadiisii meeshii uu ku dhashay magaaladii muqdisho xaafadii uu ku barbaaray ku koray ee cabdicasiis waxaan rabaa inaan sheego taariikhdiisa cayaareed koobkii uu soo qaaday iyo meelihii uu ka soo ciyaaray guulihii uu soo hooyey iyo guud ahaan waxa uu uga dhigan yahay marka noqoto xagga sportska iyo ciyaaraha cabdiqaadir shiikha waxaa weeye waa dadka faraha lagu tirin karo ee soomaalida ah ee qof yiri qof weyn buu magaciisa haddaad sheegto uu garanayo xaqiiqda marka laga hadlo عاون نصيبه ويلتدكينا والله معجزة خرقوها ما شاء الله عمري سعيد الله يضره بالله والمولود شرف المولود إلهي محمد العلي يسمع عمري وانت كلام بسيطة صومال المدر والكويتا صومال المدر والكويتا ما شاء الله marka waxa uu gudbiyaa marka tartamadu ka soo qalgalay biladii uu soo qaaday laakiin intaas u gudbin hadda waxa way sidoo macallinkeen cabdiqaadir mursal uu yahay tababare suxufiyiinta iyo maaragtay tababara warbaahinta dadka ku jira ama dhalinyarada jecel inay bartaan isagoo sidoo kale dhalinyarada gobolka Minnesota ee kubadda kolayga waliba dhalinyarada aad u da'yar ayuu tababaraa oo waqti badan u geliyaa waa tababare ilaa heer qaran intuu waqtigiisa tabarucay ay wadankii Soomaaliya ku noqday xulka qaranka Soomaaliya isagoo tababaro fursado badan oo maaragtay tababar adduunka kale loo aaday xagga kubadda kolayga ana uu ku dhiirigeliyay barnaamijyo cusub iyo nidaamka cusub ee kubadda kolayga wadanka looga dheelana ayuu wadankii dib ugu celiyay maadaama wadankii muddo 27 sano oo burbur u galay marka cabdiqaadir shiikha kubadda ka bilaabay oo ka qayb qaatay tartankii degmooyinka gobolka banaadir waa 1978 ilaa 79kii kooxda kubadda kolayga heerka koobaad naadiga badda ayuu u ciyaaray 1979kii ilaa dagaalkii sokeeye uu dhacay 90kii dagaalka Soomaaliya uu ka dhacay xulka qaranka wuxuu u ciyaaray 1983 ilaa dagaalkii sokeeye intuu maartay ka dhacay wadanka uu burburayay guulaha ay gaareen kooxda badda oo u ciyaaray oo isagu markaas xidigii ama dadku waxay u imaan jireen shiikha ay garoonka u imaan jireen inay dawada waxaa maqli jiray waa qofkaasi inuu qurxiyo marka garoonku marka qaarkood wuxuu ahaa shiikha iyo dadka lagu qurxiyo marka 1980kii iyo 1982 kaalinta koobaad ee horyaalka kubadda kolayga ay maartay ay qaadeen guushaas ayuu soo hooyay shiikha iyo kooxda la ciyaaraysay 1986 ilaa iyo 88diina ciyaarihii ugu wanaagsanaa ee tartanka ciyaaraha xidigaha kubadda kolayga isaga ayaa ku guuleystay ciyaartoydii ugu wanaagsanaa isaga la siiyay oo MVP-ga noqday shiikha hadduu Maraykan joogi lahaa ama uu maaragtay dal sida Maraykanka kale hadduu joogi lahaa sida loogu gatay hadda LeBron maxaa la dhahay 154 milyan ka badan ayaa lagu gadan lahaa kooxihii caalamiga ahaa ee maaragtay uu la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah waa wadanka Jordan Yamanta Sanca Tanzania Ethiopia Zimbabwe Algeria Palestine Masar Kuwait maxaa la dhahay Imaaraadka Carabta Syria Kenya Morocco Bahrain wadanka Ivory Coast Mozambique Nigeria Saudi Arabia Lebanon iyo Mauritania wadreynka marka heerka wuxuu soo kale oo ka qayb galay ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwa heer qaran oo isagoo matalaya xulka qaranka Soomaaliya calanka Soomaaliyana huwan calanka Soomaaliyana ku labsan oo xiran wuxuu ka mid noqday
sheekha tababarayaashii ama dadkii macallimiinta ka noqday naadiga badda heerka koobaad ayuu tababare sidoo kale dadka ka mid noqday cabdiqaadir sheekha sidaa idiin sheegay hadda waa tababare dhalinyarada ayuu tababaraa xulka qaranka ayuu wax ka tababaray waxaan jeclahay mar labaad mar saddexaad si wadaadtinimada kala yaraabay nagu soo dhaweysaa sheekha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام سيدة قرار صحافة عندنا محل البدن أخذنا قرار سبورتيكا وحن رأينا على المكة الوضوكية وحن رأينا مركز أمها العليو وليها سؤال قبل البرنامج كان قيمها بدن سومالي انترتينمنت ولي بسيقى أيضا أمها العليو ولكن عبد الحكيم بيئة يقولوا كل الشغالين أنا سأل كنت وقت بين بالجري وحن وعقنا هاي عبد الحكيم وكنتي وكل جسيد أنا صعود مرة هذه أي سنجارية دائرة من الصورة أي سنجعنسين عبد الحكيم يقولوا لي برنامج كان له ولا كنتي برنامجكو مقرب وداندو سوسيدا دكتور وحنا كعب سنجارية الصومالية يكونوا قبل كان من الصورة إن جعلنا سلي ولا كان سي برنامج كانوا نقوله بدون نجاح إن شاء الله. إذا سنجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرات مع كما دعينا يا حديدا قيمة الرئيسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa mahadsantiin dhammaantiin iyo dhammaan qaybgalayaasha quruxda badan ee la soo ajiibay laga aqbalay maanta in halkan habeenka caawa loogu yimaadaan waxay la soo dhaweysaa maamo Faadimo Hiirin si kal iyo laab joogto waa mahadsantiin Thank you so much. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxa weeye waa wax waajiba in la ixtiraamo dadkii kaa horreeyey oo ama soo halgamay oo aad loo yaqaan dadkii qiimaha lahaa marka la xuso oo la qiimeeyo idinkana berri waa laydin qiimeynayaa waxa weeye safba safka ka dambeeya ayaa isaguna sii qiimeynaya wuxuu qabtay marka waxay ila tahay hadday fan ahaan iyo hadday qoraal ahaan iyo hadday hadal ahaan waxaanu soo gaarsiinay ummadda Soomaaliyeed meel ay ku faanaan oo iyagu ay fanka la jeclaado waxaanu bilownay fanka annagoo markaan idaacadda gelayno sii socono dhagaxna la dhaco oo nala tuuriyeeyo annagoo baarsan oo wejiga iyo madaxuna dhiigayaan geli jiray idaacadda taasi waxaanu u adkaysanay dhibkaas in jiilka naga dambeeya oo weliba gabdhaha ah sababtoo ah wiilashu booskii gabdhuhu geli jireen bay geli jireen riwaayadaha iyo marka la samaynayo nin baa gabadha ku labisan jiray oo mateli jiray gabdhahana ma ogolayn marka waxaanu ku adkaysanay in gabdho badan oo heesaya iyo gabdho badan iyo wiilal badan oo wax qorhaya ama hadlaya inay soo baxaan waanu ku guulaysanay waxaana mahadda iska lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo markii nala tuugeynayay iyagoo tuugiyada dhinacooda ka gelaya oo wixii la soo tuugeynayay iyo wadaadadii lahaa fanka lama rabo gabay lama rabo maxay ahayd waxaasoo dhan hala joojiyo dad badan baa soo baxay oo la taageeray oo iyaguna markii dumay fanaaniin noqday waxaan aad ugu mahadnaqayaa barnaamijkan qoontaan dadkii soo abaabulay cabdi xakiim diyaar iyo
kowsar iyo bahda saxaafadda oo dhan ayaan u mahadnaqayaa. haddaan dabco caawa inaan ka taariikheeyo wixii aanu soo marray oo aanu u soo marray in ay soo baxaan dad Soomaaliyeed oo hal abuur leh. abwaan waxaan u maraynayaa waa erey mar dambe ku soo baxay. abwaan buug baa loo jeeda, buuggaan lagu kaydiyo ee aqoontooda, laakiin hal abuur baa la oran jiray, dadkii hal abuurka ah. anigu waxaan filayaa sida Shiiqay iyo Cabdiqaadir Mursal dad qiimo badan ayaa maaragtay xagga fanka iyo xagga warfaafinta iyo xagga qoraalka iyo aad u soo baxay oo ay dadku aad u jeclaayeen. Cabdiqaadir Mursal riwaayadii olol iyo hooyadiis waxay ahayd silsilad isku xiran oo marba maalinta ay raadiyaha soo gelayso dadka dhan wada dhegaysanayaan, wax kale aan la dhegaysanay oo aad loo jeclaa. qofku waqtigaa sameeyey silsilad isku xiran oo riwaayad ah, maxaad u malaynaysaa? ka bacdi maxaa intee soo baxday oo kale oo sii abaabulay inay iyaguna qori karaan oo sidaasoo kale ummaddu uga faa'iidaysanayso. waxaan aad ugu gubaabinayaa sidii Cabdiqaadir Mursal u sheegay idaacadda in la taageero. halkaan idaacad baanu ka hadli jiray la yidhaahdo Radio International, 2 sano iyo bar baanu wadnay. intii dhegaysan jirtay waa taqaanaa u malaynaya. waxay u xirantay in lagu tabaruco $2 ama $5 oo Soomaali oo dhan u soo caawiso. intii Minnesota joogto bay u xirantay. marka haddii aynan istaakulayn oo qofkeenii tartamaya aynan xooga siinay oo kii wax qoraya aynan ku guubaabin oo aynan inagu buugaag qoranin. halkan waxaan u imid gaar ahaan Faadumo Qaasim Hilowle. Faadumo Qaasim Hilowle oon caawa awoordiga anigu u qaadahay, allaha naxariistiisa macnaha siiyo. fanaaniinteennii qiimaha lahayd iyo wariyaasheenii qiimaha lahayd oo dhintay ayay iyaduna ka mid ahay. Faadumo Qaasim waa gabadhii afaraad. waxaa bilaabay fanka oo gabdho ah. waxay dalays duniyo iyo aniga oo faadmikeyga la oran jiray markaas. markaan wariyaha u bedelina faadmikeeda marka Faadumo Qaasim waxaan u malaynaya haddaan qiyaaso 7 sano jirtay markay fanka jirtay. aabbaheeda fanaan ahaa, wuxuu ahaa fanaaniintii xorriyadda usoo halgantay buu ka mid ahaa Qaasim Hilowle. gabdhihiisa isagaa fanka soo geliyey. Faadumo si ay microfonka u soo gaarto kursi baa la saari jiray, waayo microfon la ekaa markaa ma lahayn. kursi baa la saari jiray, markaasaa sidaa loogu dhiibi jiray microfon, qof baa hayn jiray. marka ay heesayso ilmo intaa la eg waxaa la dhihi jiray Qaasim Hilowle baa u jiray gabdhihiisa ilmihiisa yaryarkaa fanka usoo geli. laakiin bal sida fankeedii looga faa'iidaystay aad iyo aad baan u xasuusanaa. qiimahaasna waxaa iska lahaa Qaasim Hilowle oo isaguna aad ku dadaalay inuu carruurtiisa fanka iyo hiddaha iyo dhaqanka baro. laakiin waxay tiri waxaa igu mas-uula hooyo Faadumo Hiirad Qaliyax ayaa igu mas-uula oo taariikhdii hooyada iyo fanka iyo awowgeeda taqaana. annagana maanta aad baan ugu hambalyeynayna waan idin salaam iskuuli. marka waxay tiri idinkaa igu mas-uula. markaa guddoomiye warkala
Thank you, thank you. waa wariyihii koobaad ee gabadh Soomaaliyeed ah alxamdulillah maanta inteena oo dhanba haddii ay caawa nasiib u yeelanay inay caawa halkan inagala qayb gasho iyo xafladan lagu guddoonsiinayo awaardiska dadka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee Soomaalida ah iyaguna mar walba u heelan oo u taagan inay bulshadooda kaalin mug leh ay ku jiraan. waxaan ka soo shaqeeyay radio Tolweyne waxaa idaacadaas ay ka bixi jirtay marka uu soo galay waxa uu dhihi jiray halkani waa radio Tolweyne waad ka dhageysanaysaan muujadaha dharkooda yahay gaalkacyo ilaa iyo magacli dhegeystayaal ku soo dhawaada warbixin toonka laga soo gaaray waxaa noo aqrinayaa wariye toonka maaster qaraab xiriiriya ayuu dhihi jiray wariyaha kale intaas waxay iga idkaftan dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadka soo qaybgalayaasha barnaamijkan soo qaban qaabiyey walaalkeen cabdixakiim PR halkan kuma soo koobi karo mana doonayo inaan ka sheekeeyo laakiin waxaan filayaa kulli waa la wada arkay cabdixakiim wuxuu qabtay halkan waxaa safan ood wada garanaysaan dadkan ma doonayo magacyadooda inaan kusoo koobo waa fanaaniintii iyo adeer cismaan oo ah madaxii ama asaasihii masxafka Somali Museum Minnesota masxafkaasi waxa uu soo gaarsiiyey heer dad aanan isku diin ahayn isku dal ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn inay jeclaadaan sababta waxa keenay qofka wada ayaa keenay inuu ka gado ummad kale annaga dhaqan keenay waxaana imaan doonta insha allahu tacaala biidnillahi alkariim jiilka soo socdana inay sidaasoo kale usii wadaan waxaa dhacday inta aan masxafka la samaynin aroos waxaa la soo bandhigayaa qor walba dhaqankeeda soo bandhigto meeshii baan tagnay waxaa isugu yimid 6 nooc oo Soomaali ah Soomaali Indian Soomaali Sacuudiyaan Soomaali Iiraani Soomaali Turki Soomaali Djiboutiyaan waa Soomaali waa sax Soomaalida Soomaali galbeed waa Soomaali Soomaalida Soomaali ka timid waa Soomaali laakiin Soomaali Hindi iyo Soomaali Iiraani iyo Soomaali Sacuudi meel naga soo galaba garan weyn arrintaas waxaa soo afjaray adeer Cismaan maanta lama maqal cid dambe oo intay meel timaado ma tiraahda Soomaali baa matalaya iyaga oo hidda iyo dhaqan kala wata waxaan aad ugu mahadcelinayaa adeer Cismaan shaqada ay soo qabtay halkan caawa waxaa lagu doonsiinayaa abaalmarin taasoo aan isleeyahay waa u qalmaa sharaf iyo ciise ayuu naga mudan yahay dhammaanteena waxaan rajaynayaa in la wada taageero masxafka hidaha iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed innaga oo joogna dalka Mareykanka innaga oo ku badan gobolka Minnesota maanta haddii walaal masxafkaas waxaan rajaynayaa in adeer loo mahadceliyo Cismaan ku soo dhawow santihiin boqolkiiba boqol anigu hadalkaygu waa kooban yahay dhammaan inta halka soo xaadirtay oo dhan inta istaagtay sacabisay inta stageka soo taagtay ee dhaqankooda support garaynaysa aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa dhammaantood dadkan oo dhan halka taagan caawa goob kalena wada joogi jiray had iyo jeer isku koox baan ahaan jiray laakiin xoogaa baan yara baydhay oo meel kalaan soo dhisay meeshaan oo isugu imanayna hadda insha allah hawl ballaadhan weeye wax la soo koobi karayo maaha dhammaanteena soomaalida say u dhayiin aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa waa institutionka keliya oo aan arkay Soomaali inay ka midaysan tahay meeshay doontaa ka timaado waa midda keliya ka siman tahay oo ay taageerto oo sanad kasta kharashka ay ku meel marayso ay wada bixiyaan iyagoon u eegin reer gobol iyagoon meelnaba u eegin Soomaalinimo ayaa lagu bixiyaa laguna taageeraa aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa Soomaalida reer Minnesota iyo kuwa gobollada kale jira wadamada kale jira ee meesha u dhisaya dhowrka milyan ku baxayso maanta oo dhammaan hadday Muqdisho joogaan iyo Dubai iyo London iyo halka dhammaantood waxay ballan qaadeen inay dhistaan dhismahaas ilaa $3 milyan ku kacaya aad iyo aad baad mahadsantihiin idinkuna qayb ka tihiin insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
barnaamijka quruxda badan ee hawsha badan ay gashay caawa haatana waxaanu yeedhayaa deeq darajo DJ Jailani aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa labadaa nin oo isgarab taagan caatada aragtaa maanta si kasta waayo gacabta xakiim bay arfurguud waa siinay jiis waa siinay weli waa cayilaya somaarta waxa ula cayilaya isweydiiye waaye deeqna waa cayilaya deeq maana wuxuu igu sameeyey camera meel dhiganay nin madow xoog weyn oo ku muqaadistay oo isla camera wataa camera oo jigsi moqti أنا أسكوال واحد وياه كاميرا نيريحين حكاية التشيو دفن عليه نيجا حوالي أسكوالي فير وقت مركز سيد على الدين مشين ما يصير كمل حتى لما قعدت مرة كسر على الدين محاد عينيه ونيكو محاد يوسي ديز وعين نيجا عليك أنا قعدت كاري أنا سيجري لا فلاه كلا عايزين وتهاي واحد رباها في نقصه كوبو تاريخي وكوبن ولكن وجعله أورجيا إسلام كان أجاسمه يجاه Somali Entertainment Award we lost one and the only Deeq Darajo Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1985 waxbarashada asaasiga sida dugsiga hoose iyo dhexe iyo saraba waxa uu ku dhamaystay isla Muqdisho Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaan Deeq Darajo waxa uu baahinta ka soo bilaabay Muqdisho sanadkii 2004 waxa uu la shaqeeyay bogga Somali Talk muddo 2 sano ah 2008 Deeq Darajo waxa uu ka shaqo bilaabay Radio Simba isla sanadkaana waxa uu ku biiray Radio Dana oo labaduba ka howlgeliyay Muqdisho kadib waxa uu labaduba ka howlgeliyay magaalada Muqdisho kadib waxa uu muqbaahiyay ugu horeeyay oo ka shaqo bilaabay isla sanadkii 2009 isaga oo ku sugnaa dalka Koonfur Afrika muqbaahiyahaas oo ahaa Somali Channel waxaa ku xigay Universal TV isla Koonfur Afrika ayuu isna kaga howlgalay sanadii 2007 waxa uu asaasay wargeyska Xogmaal oo hadda ka mid ah kuwa ugu caansan isaga oo loo bedelay online website YouTube iyo Facebook sanadkii 2009 waxaa loo doortay gudoomiyaha saxafiyiinta Soomaalida Koonfur Afrika halkaas oo ahaa muddo 6 sano ah Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaan Deeq Darajo waxa uu ka soo socdaalay dalka Koonfur Afrika waxa uu yimid dalka Mareykanka 2014 bishii December waxa uu ka soo degay gobolka Massachusetts oo uu noloshiisa intii halkaa uu joogay ka soo bilaabay inkasta uu Deeq Darajo helay fursado kala duwan isla warbaahinta dhexdeeda iyo qaybo kale waxa uu doortay inuu sii wado shaqadii uu hayay bulshada Soomaaliyeed ee aan ahayd adeega bulshada Deeq Darajo waxa uu Minnesota yimi 2015 bishii labaad isaga oo ka bilaabay magaalada Rochester kadibna Minneapolis ku soo wareegay hadda waa agaasimaha guud ee telefishinka Universal iyo milkiilaha shacabka waxa sidoo kale yahay madaxa qaybta miidiyada ee ururka Isroon waxa uu ururkan la shaqeeyay intii uu ku sugnaa gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha waa ninka gaarayaan waa agaasimaha ugu soo dhaweeyay إذاعة Voice of America وVOA Washington جامعة فرنسا وأنا كهذا نقدر نقاعد أو أنا كصوب حنا الفعل برنامج كذا نقدر جامعة وإحنا نصوب بعضي قبل كواشنطن هالكن الشقاء يومي جامعة وما تصدق لما أنت ودي بعد اللي ده درجة لا يهم أول أكبر ما صنت هاي أبدا بعد اللي يعني كذا شرفت الله برنامج كان كسر بشيء
waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka barnaamijkan soo qaban qaabiyey Somali Entertainment Award in abaalmarintan la siiyo waxay muujinaysaa farxad aad u ballaaran waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn weliba inay xilligan kusoo aaday weliba dhiirigelin aad u wanaagsan ayay ii tahay waxaa si gaar ugu mahadcelinayaa cabdixakiim BR oo ah nin aad iyo aad u dadaal badan marka waa mahadsantihin waa tahay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin dhammaan dadka awardka la siiyey iyo dadka siiyey هاي جوكر waxay tiri adiga Australia ka timid miya isteedka school isla hadii kaaga macna ما maanta dhan waa iska dina qof magaalada degan baa iska dilaysan macnaha qof magaalada degan soo gooni mid ma jirto 612 xoogaa 6 bag waa sidaada camal 6 bag sheekadiisa kaga sheekeena ka 6 bag ma laakiin 1 bag waa sideeda camal okay yaqaan wata CD waxaan rabaa anaga ka group waxaan u naqaanaa Minneapolis qofka taqaani waxaa ku dhaxnoo qofaada ka siin marka waxaan u naqaanaa ka group adiga wax kale u taqaan Australia laakiin ka soco programkeena gal walaalkayga aad u wanaagsan Australia oo diiday waa promoter waa DJ oo ka fadhiista laakiin one of the best promoter wata waa maasantii laakiin dhibaatada ka jirta meeshan waxay tahay qof wadado si uu mashquulsan yahay مثل صعنا وسفار بجونا وضع مثل مغلوب وكان مشغولين حال مر دنا عمسو جسد مثل صعنا وسفار بجونا thank you halka wax oo aan rabo inaan ku kordhiyo waxay tahay BR waxyaabo badan oo ii sheegay laakiin wuxuu leeyahay oo asaga deeqda joog waxaan isaan uga cayilsiin karaa furgudud waa la sii wax walbaa la sii laakiin anaa sheeko u haya sheekadaas idinkana idiin sheega ayagaan u hayo lagu cayilsiin lahaa mase asaga bisoo sheega idinkana idiin sheega maala waraa baxra ku jirta boqola doq baxra ku jirta noo sheega sheekada anaga dhaarnaa sheegme hay ka socwaata waxa aan markan u wacayno waxa ay tahay aad soo gaabiyo sababta waqtiga yar waxaan u wacayno waxa ay tahay gabadha ayadoo qaadatay filimka gabar abwaanada hay marna aktarada hay marna la xamiista hay marna bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis baal dahab kaga jirta baa meesha soo istaagnayna awaadsiino waa tahay hadaba aan u wacno gabadhaasi oo ah Qalanja Ciise oo aad wada taqaaniin waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin haatan aan u yeedhan wada waca
وعرضنا أولنا سينو ديان كيسو هلو تقاتين بركة عبد الرحمن محل هذا بركة عبد الرحمن ما شاء الله هديه ما شاء الله هديه باك أكتر ninkan waa jaabir one of the best actor waa asaga naftiisa laba maro awood qaaday barkan asaga u qaadayo waxaan leenahay barkadow meesha ka sii wad waxaa kaloo ilmaami keenin walaalkii barkad filimkii barkad cabdi filimkii baaridka ninka tooraka oscar naaminiga oo dhaqaale ahaan ugu taageeray isaga waa maaseen dhammaan farxinta oo maasan carab deeqaa joogto roolo waxaa joogto farxiisa marinta joogto roolo joogto waan faarmihii hinda oo ku jeeda kulli waa salaamta sidii loo kulli waa salaamta waxaan u yeeraynaa carab inabdeed iyo waxaan u yeeraynaa sariif aad qaali ah oo ka soo shaqeeyay meelo badan oo wax yar taariikhda nooga sheego nin walaalkeena oo best show leyna shows kale taariikhdiisa ayay nooga sheekeyn doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا محرمة لما كان كيرا صحافة waxay ku sagaal boqol iyo labaatankii markii ugu horeysay warbaahin la asaaso waxayna ku bilaabatay magaalada Roma halkaas oo warbaahintaas intuu jeed hooskiisa ku qofku baalaska afku jiray oo dadka ka dhageysan jiray kan marka waxaana Francisco bixiya dijonaal marka dijonaalkaas ayaa waxay ku asaasatay warbaahinta waana magaalada Roma marka ilaa kun sagaal boqol iyo afartan iyo shantii kadib ayaa bilaabatay idaacad TV ah ama radio wixii ka dambeeyay laakiin waxaa ku horeeya qoraalka oo macnaha print media wax la yidhaahdo ama warbaahin la daabaco taasaa ugu horeysa haddaba markaa sidaa la socotaan baan radio muqdisho oo waxaa ka kashanaan jira laanta kuhisiya radio muqdisho radio muqdishona waxaa jooga mudacada oo macalinkeena madaxii ahaa cabdiqaadir musa oo mataqaanaa marka dadkii uu soo bixiyey ayaan kamid ahay marka anigana maanta waxay lahayd laanta afka swahiliga waxay lahayd faransiis waxay lahayd talyaani waxay lahayd amxaari annaga marka isla markaana waxaa la shaqayn jiray wakaaladda wararka ee sona qaybta warqabadka marka waxay ahayd habeenkii in maalintiina laanka radio muqdisho oo aan ka timinine hadda xogaana xasuusiyo waxaa waaye you are tuned to the English service of Radio Mogadishu, the voice of Somali Democratic Republic, broadcasting to you on the foreign and It is now to broadcasting local time, so we come to the end of our transmission in English for today. Until tomorrow, when we shall be with you at the end of the foreign and Japan, this is a blessing of command saying goodbye. Tata Sogil, marka waxaa jiri jiray barnaamijyada xogka Swahiliga iyana ay jiri hii Radio Mogadishu sauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Somalia ilikuwatarajia kuna mita ya 49. Hamjambo wasikilizaji watukufu popote mlipo, karibu tena tunapokeza lugha ya Kiswahili kwa leo. Sasa kale waxaa jiri jiray Amhari, Faransiis iyo waxa dadka waxay barnaamijka kuwa Madagascar iyo France meelahaas ka imaado marka sidaa la socotaan 1974 markii Sweeper isku dayay ama waxyaalaha lagu xusi karo ay ka mid tahay farka Soomaaliya haddii aan la aasaasno ama la qorin farka Soomaaliya maanta ma jiri lahayd Soomaali ama Soomaalinimada ma gabageli lahayd walaashay joogto canab inadeeq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
fanaaniinta aad baan ugu mahadcelinaya DJ the best DJ in the town waxaan halkan ugu yeelayaa caawa sharaf weyn ah Liibaan May oo bulshada Liibaan Xuseen oo bulshada magacweyne ku leh bulshada Soomaaliyeed oo dhan especially annaga fanaaniintayada aad iyo aad iyo aad fanaan walba la soo shaqeeyay waqti badan aan soo wada shaqeynaynay Liibaan walaalo waxaan aad ugu mahadcelinayaa ilaahay caawa inagoo dhan iskuulkeenkeena halkaan inagoo nabad qabna aad baan kuu soo dhawaynayaa soo dhawow walaalo saxabkiisii Liibaan May TV show Somali Liibaan Xuseen waa CEO My TV mudanayaal iyo marweyn aad baan idin salaamay marka hore habeen wanaagsan cabdixakiin BR runtii waxaan u malaynayaa haddii ay soomaalinimo ay dhab ka tahay waxaa soomaali dhab ah cabdixakiin BR sababtoo ah cabdixakiin anagu waxaan bursanaa mar walba batalyoonkeedii wuxuu mar walba isku dayaa in soomaalinimadu farshaxankii luqadii afkeedii iyo caruurtii in waxyaalo badan uu soo xasuusiyo marka qof sidaa oo kale ah haddii uu joogo dalkan maraykanka waxaa uu nooga baahan yahay annaga haddaan nahay soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ma taageeraynaa cabdixakiin mise waxaan u sheegaynaa inuu caawa ugu dambeyso wuxuu wado aniga waan u sheegay waxaan ku yidhi cabdixakiin waa daashay you are retired aniga ugu bedel baa marka saaxiibkay cabdixakiin showyaal badan ayaa isla sameeyay waa nin runtii rugcada ah cabdixakiin runtii aad baan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh adigu mataqaanaa ummaddan dadku xaflada isugu yimaadaan laakiin shahaadooyinka quruxda badan wax bixiya ma jirto shahaadooyinkan cabdixakiin jeebkiisu ka soo bixiyaa mar walba laakiin wuxuu isku keenaa sidii jaaliyadu ay isugu imaanayeen Somali Entertainment Award waa wadankan aanu joogno waad aragteen intaasoo milyan ayaa ka soo qeybgashay adiga marka waxaan u baahannahay inaan helno inaan taageerno meel sidaan oo kale ka weynna inaan habeen walba aanu isu qabanno aanu isugu nimaano laakiin hadda haddii la dhihi lahaa reer hebel baa imaanaya wasiir hebel baa imaanaya meeshan ciidama qaadeen soo maha marka taas ayay ku tusaysaa in meeshani aysan run naga ahayn soomaalinimadu marka walaalayaal runta aan isu sheegno walaalkeennana wuu daalay caawa aan runta u sheegno aan dhahno niba iska fadhiiso ilmaha korso aan dhahno haddii kale aanu garab istaagno aanu la shaqayno waad u jeedin maamulka Somali Museum ayaa jooga anaha qofka waxaa la fiiriyaa waxtarkiisa anagu aqal Soomaali halkan ma gooni laakiin maanta waxaan ku faan ayaan haysanaa marka example cabdixakiinna waxaan haysanaa qof aan ku faano oo mar walba wax noo keeni karo sideenu ku heli karnaa marka aniga waxaan qabaa cabdixakiin aanu taagan